السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan u hambalyeeynaa oo inuu ducaynaynaa ardayda maanta qarin jabinaysa ee faraha badan ee 1888 ah. waxaynu bogaadinaynaa waalidiintii ku soo tacabtay jaamacadda Camuud, gudoomiyaheeda, boorka, guddiga trustigaha iyo macallimiintooda halkaas soo gaarsiiyayna waa bogaadinaynaa oo waa u mahadnaqaynaa. waxa inoo guula in qaran ahaan maanta ay inoo soo baxeen 1888 degree holderisa ama jaamiciyiina oo culum kala duwan baratay oo ummadda Soomaaliland uga faa'iideyn doonta dhinac walbana. ilaahay baynu ku mahadinaynaa, dadka tuucana waa mahadnaqaynaa. hambalyada iyo mahadnaq kadib waxay la tahay intii hore intay dardaaran iyo hoogatus iyo dhiirigelin iyo ducabaydii yidhaahdeen ayaa annaga igu eg tahay oo intii hore intii ay tiri baan ku kalsoonahay oo raacinaya. dhinac walba waa laga hadlay, qodobo badan baa la sheegay, markaa saddex erey gaagaaban baan odhanayaa. taariikhda jaamacadda waa la sheegay, tacliinta iyo awoodda ay leedahay iyo siday u shaqaysana waa la sheegay. qodobadii halkan laga sheegay maanta waxaan ku darayaa, maanta waxaynu fadhinaa xaflad, laba xafladood oo waaweyn iyo laba qarin jabideed oo waaweyn. waa koowa waxaynu marka hore u dabaaldegaynaa aynu soo dhoweynaynaa ardayda 1888 ah oo xafladda loo qabtay. waxaa ku lamaan xaflad taa ka weyn oo guul Soomaaliland oo dhan u soo hooyatay ah oo geeska Afrika inta lagu arkay ay yar tahay ama Afrika badankeedaba. waxa maanta guul weyna oo shacbiga Soomaaliland meel jooga gaaray oo idinkana mustaqbalkiina aad ku higsan doontaan oo arkaysaan Soomaaliland oo loo dardaaro wariyo oo la yiraahdo lama ictiraafan, oo la yiraahdo waa dal yar oo faqiir ah, oo la yiraahdo waa dal rabshad badan oo hada jeer qabqabsada. waxaan doonayaa inaan xusuusiyo guusha la gaaray qof waliba qayb ku lahaa, qof waliba qayb ku lahaa. waxaan arrintaa u sheegayaa, aan doonayaa inaan tusaaleeyo. dad badan baa u qaata siyaasadda meel colaad iyo balaa taalo ama mucaaradka iyo muxaafidku inay yihiin dad daahoodga oo aan wada shaqayn. laba tusaale oo madaxweyne Daahir iyo Maxamed Yuusuf Asiir madaxweyne iyo ku-xigeenka iyo aniga Siirayi oo mucaaradna dhex maray oo mar walba dhacdaan idin sheegaya dhalinyaradiinu iyo tacliinta. mar waxay ahayd markii aan isku khilaafsanayn doorashooyinkii wax oo abaabul u galayay kulmiye oo hal mudaharaad oo hal boqorey ayaa waxa telefoon igu soo dhuftay Cawil oo ahaa wasiirkii maaliyadda iyo saaxiibkii koowaad Daahir kale. wuxuu ugu yiri walaahi Britain waxa dhacay dalka khatar ku jiraa, hal ma heli karaysa ma qaban aanu Daahir waan qaban karaya, adigu Siiraayo ma qaban kartaado labadooda meel gaar ah isku geynaa ma wada hadashina. ma oran alla soo tashan Siiraayo ma arka wargo waxaan ku waan soo qaban karaya saacadii meeshaadii qabato. isna Daahir oo ma hadee soo wada hadleen awoodda uu ku qabay. waxa ka bilaabmay halkaa inaanu Cawil habeenkii isu tagno isla qaadana si la isugu doono cid walba kale ba hadaasho. waxay ku dambeysay in aanu isugu nimaadno qasriga madaxtooyada oo Daahir joogo oo aan 12 sano aan gelin inaanu isugu nimaadno oo arrintii lagu xalliyo ayaa ka warahay. laba Daahir codkii baa la tiriyay, labadiisii ugu dhowaa ee campaign la taliyaasha u ahaa labadiiba BBC idaacada ka diyaariyay yeelaynin natiijada soo baxaysa. waa labadii ugu adkaa oo miidiyaha idaacadaha waaweyn caalamka yiri ma ogolin waxaa la wadaana waa khalad. markii natiijada lagu dhawaaqay
daahir yaale intu soo fadhiistay wuxuu waan ogolaanayaa nabadda dalka wax walba iga weyn waana taariikh sacab weyn ha loogu tumaarintaa intaa waxaanu sheegayaa waxaan daba socdaa professor Saleebaan oon in badan isaga iyo gudoomiyaha jaamacadda ka wada hadallo oon in badan halkan ka sheegay meel kale ka sheegay weli waxaan tabayaa inaynu isku diidanahay oo mar walba ka warwareegaan waar jaamacaduhu sayniska way soo saareen injineeradiina way soo saareen caafimaadkiina way keeneen beerihiina way keeneen businesska lacagtiina waa la keenay dalku wuxuu ka socon laayay waa hogaaminta jaamacaduhuna hogaamintii way ka warwareegayaan waayo naanis baa loo bixiyay xol siyaasadda markaan siyaasadda waxay noqotay wax laga cararo oo taabiya jaamacadda ayay soo gelin anigu siyaasadda ma galo baa mister baanahay anigu waa abaashahay kan dhakhtar baanahay haddana nin waliba intaa siyaasadda ku hadlaya gabadh waliba oo lagu jira lugtu ma lagu jira marka waxaan leeyahay jaamacadda Camuud jaamacadaha ugu weyn oo ugu magac weyn oo ugu waaya aragsan waa in laga helaa meel lagu qabtaa dibeedyada iyo cilmi baarista researchka siyaasadda oo dalka dhaqaalihiisa si loo hagaajiyaa dawlad wanaag sida loo helaa dadka si la isu afgarasiyaa doorashooyinkan muranka badan ay nagu soo noqnoqdo marba sida xal loogu helaa dee jaamacadu waa inay taa ka sameeyaan researcho iyo aqoon-yahano oo ninka xisbi hogaaminaya ama dawladda haya uu gacan helaa gacan ra'yiga dadka la uriyo la shiilay waa inuu hala meel uu kala soo baxo dhakhtarku haddii aanu haysan shaybaar ku noqdo dawada waa caalamku muxuu ka yidhi oonu ka fargarin dawo kuma siinayo dhakhtar weyn noqon maayo injineerku waa la mid haddii la yidhi qof kaasoo dalka hogaami mayorka dalka hogaami baarlamaanka dalka hogaami oo aanu weliga hawsha ka shaqeyn meel uu noqdana aanu haynin jaamacad walaaq u diyaarsan aanu haynin oo dhan taasa dhacay taa ka yeel de hore loo socon maayo marka waxaan leeyahay jaamacadu waa inay sameeyaan faculty leadershipka ama political science de maxaa siyaasadda looga baqaya waqti lagu jiraay waa inay qabtaan doodo oo iyagu hogaamiyaan waa inay murada dhaca iyo xalkooda keenaan ilaa imika muranka dhaca ma kii laba reer migis qabsanayeen marka jaamacadaha waxaan leeyahay taa la wado oo Camuud waxaan ka codsanayaa Dr. Maxamed Muusow intii hore taa war hayno naga qabanay in la furo doodaha iyo researchka iyo faculty siyaasadda intaas ay noo dhiman haddii kala dalka hore socon maayo macallin Saleebaan dee uu ritaar galay horta isagu 4 sano shaqadan hayay buu horta 4 kaaba oo suuq joognay intaas waa kafta ka in badan baa fadhiidano wax kala hadlayay waana taariikh caadi oo iska dhacda waxaan ku soo gabagabeynayaa waxyaalaha badan ee soo barateen ereyada ugu dhaadheer waxa la yiraahdaa inspiration dhiirigelin aragti vision role model dayday waxaa soo magacaysu gee maanta haddaad tiin jaamacadda Camuud waxaad nasiib u hasheen iyadoo practical oo meel loo doonay ayaan haydisi hadda waxa la hadlayaa gadaal dhaladka Camuud baa la hadlayaa odaguna aad u jecel yahay ayaan aad wax ugu sheegaya maxaa hesheen waxa hesheen Camuud oo shantii Soomaaliland madaxweynaha ka noqday 3 ay Camuud ka soo baxeen oo mid walba raadkiisa ahaysa waxa hesheen dadka ugu magaca dheer Soomaaliland ee meeydiyaha ka hadla ee Soomaaliya oo dhammi taqaariir dhageystaa 80% waxay ka soo baxeen Camuud Ahmed Saacid Watar baa ka awkaaka dalmar baa Yoris baa Saciid baa macallimiintii Soomaaliland la furo kala baxday kala baro bar kuwa ugu wanaagsan Camuud bay ka baxeen musagarna kamid aha Allah naxariisto ninka jaamacadda Hargeysa ee dhintay siyaasiyiinta ugu cadcad dhageysta badankoodu Camuud bay ka baxeen inta imka xisbiyada oo ka baxaysa qaar badankoodu waxay ka baxeen qaar Camuud dhakhaatiirta waxaa soo dhawaad dadkii ka horeeyay oo waliba waryaareen gadaal dhaladkow anagu ma nahrin jaarska hesheen PhD waa ku qaadanaysan Camuud taariikhda suuraysan waxaan ku war nasiib badan ku
wuxuu xamar wixii gaadhay baanay ogey baashi gaajayda xamar gaadhay berigii baanay ogey buur PhD inuu hor qaadanaya saako loo dabaal degaya marka waxa ku daataan iyo waxa higsataan iyo waxa ku daataan buu haysa intii macallimiintu diiday asalaamada diidan baan leeyahay maanta aqoontii inuu dalku baahay maanta dalku aqoon buu baahay waxaan mar walba soo qaadaa imkana xusaya inamadii loo doortay dawladda hoose badankooda 8% waliba gudoomiyaasha loo doortay degmooyinka waxa la igu eedeeyaa bariga xisbiga oo madax jirino waxa ka soo baxay xisbiga markay ka soo baxaan kuwan doonaya kuwan xisbiga doonaya ha ahaadeen nidaamka uu shaqeeya oo dadka nabadeeya oo fishalaan doonaya ku ka soo baxay waa kan doonaya ka noocaasi inuu dalka hogaamiyo iyo qolada shaqo qaran labada roor model waxay noo balana oo aan idin ka codsanaya bal hadayna ka fikirtaan kol dambaynu soo maadna hadii la yiraahdo waan weydiin doonaa maanta waxaan joognaa 2022 bal hadda waxa ka fikirtaan 2022 ama 2024 sideebaad u aragtaan jaamiciyiinta masterkii bachelor qaado maxaa doonaysaa Soomaaliland soo weekaato tu kala adin sheegaya tusaalaha كوبيلات سنكو شنات سنكو مركز سليبان iyo riyaale iyo cigaal iyo jaamacaddan la hadalhay fishanka ay arkayeen inay sida noqon doonto yaa arkay shantanina soo hindisay iyo kuwa dibadda ka taageeray oo dhamme yaa arkay riyaal oo arkay laakiin iyagu way muuqatay riyaas inay saa noqonayso Saleebaan maanta wuxuu ku deeq wax walba uga weyn riyadii ay riyoorayeen isaga rigi la socday inay maanta iyadoo dhaba oo hirgasho sida gantaalka u socota inuu idinku wareejiyay waxaad ka doonayaa inaad saa 20 sano soo gaba Soomaaliland seen noqonaysa ama dad ka rabna oo dadana hirgelisaan fishanka Soomaaliland ka wanaagsan ka nabad badan ka shaqo badan ka warshado badan ka qab weyn adduunka halkay doonka raacdo waana la gaaraa marka loo adkaysto maxaa buruufa soddon sano inuu ahay Soomaaliland oo la tarafsan leeyo dardaar warnay soddonna waxaanu ahayn dawladii waxaanu ku jiray dawladii Afrika ugu xoog weynayd bal qora tacliiminta ay sugeeya soddon ka sanadood aynu dawladii Afrika u xoog weynayd ee Ruushya Mareykanka bayna caawinayeen ee Soomaali Republic loo oranayay bal maxaa u qabsaamay gobolka awdal xisaabiya soddon kiilo noo dardaar warinayay ee la lahaa dawlad ma aha ee la lahaa waa dalan ictiraafsanayn ilaa qofka ilaahay ictiraafsan yahay ka xoog weyn bal xisaabiya soddonkii sano waxaanu qabsanay xisaabiya inta jaamiciin oo soo baxday xisaabi inta wadaynu sameysnay xisaabi inta guriga dhisnay xisaabi challenge qolada data taqaanay oranaysa waa 30 sanadood wad 60kii ilaa 19 sanadood isu qiyaas horumarku waa adkaysiga iyo aragtida iyo alla aaminaada iyo isku kalsoonaanta intaas ay noo balana wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh